sida loo hadalhayo wiilkan yar ee idin muuqda ayaa igu qasbay in aan raadiyo xogta la xiriira sheekada Cameron Herring oo ah shakhsiga lagu hadalhaynta badan yahay maanta caalamka looguna damqasho badan yahay sababta ka dambaysa xariga waqtiga dheer ee lagu xukumay jaceylka ay u qabaan gabdhaha Soomaaliyeed ma wuxuu barbardhac ama barajo u yahay sheekada jaceylka qiyaaliga ah oo wiilasha Soomaaliyeed u qaadeen fanaanada Nada Alqalac. muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sababta xarigiisa maxay tahay rajada laga qabo in xukunkii ku dhacay dib looga noqdo iyo sheekada qisada wiilkan yar iyo meesha ay ku dambeyn doonto. waa soo koobi doonaa dhacdada ku saabsan wiilkan iyo hadalhayntiisa, balse marka hore waxaan ku xasuusinayaa in ay muhiim inoo tahay in aad muuqaalkan subscribe, like, comment dhammaan wada samayso si saaxiibo badan muuqaalkan uu u gaaro. una shargaree asxaabtaada YouTube iyo Facebook si aan u helno asxaab wanaagsan sida adigoo kale ah. kuna soo biir boggeena Facebook magaciisu waxaa la yiraahdaa Isha Aqoonta Online. inanka xukunka ku dhacay dartiisa caanka ku noqday caalamka waa Cameron Herring, waa 22 jir kaasoo tan iyo markuu ka soo gudbay da'da 16 sano aad u xiisayn jiray in uu ka qayb galo tartamada gawaarida xawaaraha sare leh. isagoo 18 jir ayuu iskuulkiisa hadiyad ahaan uga helay gaariga nooca tartamada lagu galo oo ay soo saartay shirkadda Ford, waana gaariga sababay in kala bar noloshiisa jeelku ku dhameysto. tartanka baabuurta caadiga ah goobo u gaar ah ayaa lagu galaa, halkaasna dadka looma ogolo si looga badbaado shil, balse Cameron iyo saaxiibkiisa oo ka xinayay gaariga noociisu yahay Nissan Altima ayaa wadada highway tartan sharci darro ku galay. tartankaasi sharciga ka foga wuxuu sababay dhimashada haweeney lagu magacaabo Jessica Riesinger oo 24 jir ahayd iyo gabadheeda oo 1 sano jir ahayd oo markaasi la yiraahdo Lily. maamadan iyo gabadheeda ayaa markii wiilashan tartamayeen wadada goonayay, balse nasiib xumo shilkii ayaa dhacay. Cameron Herring ayaa ahaa qofka shilka tooska u geystay. inkastoo labadan wiil baabuurtooda isbarbar socdeen, booliska ayaa waxay sheegeen in goobta shilka ay ugu yimaadeen waxyaabo laga argagaxo. maamada iyo gabadheeda ayaa aad u dhegbaxay. shilkan ayaa dhacay 23 May 2018 iyadoo xilligaasi Cameron uu ahaa 18 jir, markaasi lama xukumi karin, balse sanada 2011 ayay maxkamadiisu dhacday, taasi oo keentay in lagu xukumo 24 sano oo leendhanaan ah. arrinkaasi ma aysan ahayn wax laga xumaado. Cameron 24 sano oo lagu xukumay awgeed wuxuu xabsiga ka soo bixi doonaa isagoo 45 jir ah, halka saaxiibkiisa markuu shilku dhacayay 17 jir ahaa oo lagu xukumay 6 sano oo xarig ah. dhammaan dadweynaha dunida ayaa aad uga falceliyay xukunka adag ee lagu riday Cameron. dhanka Soomaalida gabdhaha ayaa aad ugu badnaa oo muujinayay sheeko barajan ama barbardhac u muuqatay, kaasi oo kala soo muuqdeen baraha bulshada, iyadoo badankood gabdhuhu si kaftana u soo qorayeen erayo ka turjumayay in ay jeclaadeen wiilkan quruxda badan, taa beddelkeeda ay doonayaan in wiilasha Soomaalida dhammaantooda la xiro si wiilkan xabsiga looga soo daayo. sheekadani waa mid iska kaftan ah oo baraha bulshada oo barajo lagu tilmaami karo. daadaansiga wiilasha ayaa soo bilowday kadib markii ay Nada Alqalac oo ah hooyo aad u da'weyn oo shaki la gelin karo in hadda kadib ay caruur dhali karto, iyadoo wiilasha Soomaaliyeed ay soo qorayeen erayo tilmaamayo in Nada ay ka fiican tahay gabdhaha Soomaaliyeed. muuqaalkana halkaas hayno joogo.